kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan waa Warsida TV kusoo dhawaada qodobada wararka aan idin hayno kuwada ugu door karoona waxaa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo war cusub ka soo saartay shirka arrimaha doorashooyinka Afisiyoni iyo madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo qadka telefoonka uga qayb galaya shirkaasi madaxweynayaasha dowlad goboleedyada taageersan dowladda oo ka soo horjeesteen xubnaha mucaaradku ay ka qayb galaan shirka wada tashiga qaran beesha caalamka oo baaqooda jira ka soo saartay shirka Muqdisho ka furmaya dowladda Sacuudiga oo qabatay nin weerar ku ahaa imaamka masjidka xaramka intii aad maqasheen daawadayaal waa qodobadii ugu door corona warkayaga ahaatanna ku soo dhawaada iyagoo intii hore ka faahfaahsan fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka sidoo kale like saar asxaabtaadana u share garay fiidiyoga mahadsanida xukuumadda Soomaaliya ayaa warar cusub ka soo saartay shirka arrimaha doorashooyinka ee Afisiyoni ka furmaya iyadoona madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay qadka telefoonka uga qayb galayaan shirkani waxaa maanta la filayaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka iyadoona diyaar garow ugu xoogan haatan uu ka socdo magaalada Muqdisho isla markaana la filayo in daqiiqadaha soo aadan uu si rasmi ah u furmo shirkani waxaana inta badan magaalada Muqdisho ku sugan madaxda dowlad goboleedyada dalka iyadoona madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Goodlaw Xuseen la filayo in daqiiqadaha soo aadan uu soo gaaro Muqdisho si uu shirka uga qayb galo xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in shirku si rasmi ah maanta u furmi doono Sabti ah iyadoo hoosta ka xariiqday in shirku uu noqon doono mid si habsami leh u socon doono isla markaana looga wada hadli doono arrimaha doorashooyinka shirkan cidda ka qayb galaysa ayaa su'aalaha ugu badan la iska weydiiyay waxaana madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku adkaystay inuu ka qayb galo shirkan isaga iyo sidoo kale Fahad Yaasiin waxaana sidoo kale jirta in xubnaha mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda iyaguna ay dalbadeen in shirkan ay ka qayb galaan madaxda ka qayb galaysa shirka ayaa intooda badan soo xaadirtay waxaana ugu dambeyn goordhow la filaya in shirku uu ambaqaadmo shirka waxaa la filaya inuu shir gudoomiye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana jirta in shirkan uu ka dhacayo xerada Afisiyoni ee xarunta u ah ciidamada cirka kulamo hordhac u ahaa ayaa xalay toole ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo kulamadaas uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa arrintan go'aan ka qaatay waxaana la tilmaamay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daarin qadka telefoonka ay kaga qayb gali doonaan shirkan iyadoona la filayo in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo kulanka markaasi ka qayb galo iyadoo xubnaha mucaaradka maamul goboleedyada dowladda ka soo horjeeda ay dalbadeen in kulankan uu shir gudoomiye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana jirta in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ee Puntland iyo Jubbaland ay iyagu arrinkaasi ka soo horjeesteen waxaana ay tilmaameen in ra'iisul wasaaruhu haddii uu shirka shir gudoomiye ay noqon doonto mid dhaxdhaxaad ah haddii kalena aysan ku qanci doonin warar lagu kalsoon yahay oo la helayo ayaa sheegaya in shirka uu ka qayb gali doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana uu ku adkaystay in madaxweynuhu isagu uu shir gudoomiyo iyadoona la filayo in ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay meesha ka bixi doonto in isagu uu shir gudoomiyo waxaa la filayaa in shirkan oo lagu dhameystirayo heshiiskii 17 September iyo hanaankii doorashooyinka ee lagu heshiiyay in markaasi ay caqabado hor leh ay hor istaagaan maadaama wali la isku fahmi la'yahay cidda shirkan hogaaminaysa xubnaha mucaaradka ayaa iyagu dalbaday inay ka qayb galaan shirkan walina lama sheegin ogolaanshiyaha rasmiga ee la siiyay inay ka qayb gali karaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo soo dhaweyn oo isxog waraysi ah la yeeshay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland si gaar ah madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana sidoo kale kulamada looga hadlay arrimaha shirka wada tashiga qaran oo maanta furmaya ajandihiisu uu noqon lahaa habeenno ka hor ayuu sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland iyadoo isla qaatay qodobo lagu ballamay oo hordhac u ah shirka furmaya waxaana la tilmaamay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku adkaystay in shirka uu ka tago haddii uusan shir gudoominayn iyadoo taasi ay keentay in wada hadallo dhowr ah uu ra'iisul wasaare Roble kala galo xubnaha dowlad goboleedyada dalka maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waliba xubnaha musharaxiinta ayaa u arka in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu shir gudoomiye iska daayay inuu ka qayb galo ay noqon doonto ismariwaa in uu ku soo dhamaado iyo fashil shirka magaalada Muqdisho ka furmaya madaxweyne Farmaajo ayaa la tilmaamay in haatan uu danaynayo in shirkan uu shir gudoomiyo iyadoona la tilmaamay in qaab muuqaal ahaan ah uu madaxweynuhu filayo inuu kulanka uga qayb galo isaga iyo sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Fahad Yaasiin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada taageersan dowladda ayaa ka soo horjeestay in xubnaha mucaaradka dowladdu ay ka qayb galaan shirkani waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in shirkan isugu yimaadaan
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya si loo sii ambaqaado arrimihii ay ku heshiiyeen haddii xubnaha mucaaradku ay ka qayb galaanna waxa ay sheegeen in ay noqon doonto in caqabad ay ku noqoto isla markaana wada hadaladii iyo heshiisyadii la galay aysan waxba ka ogeyn taas ay tahay arrin aan qusaynin in xubnaha mucaaradka lagu soo lifaaqo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa waxa ay dhammaantood dalbadeen in xubnaha mucaaradka ee musharaxiinta iyagu xilka u tartamaya aysan ka qayb galin shirka wada tashiga arrimaha doorashooyinka lagu gorfeynayo isla markaana lagu dhameystirayo heshiiskii 17 September iyo heshiisyadii ay gaareen madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada waxaana ay sheegeen in haatan aysan banaanayn wado ay xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda dowladdu ay uga qayb gali karaan waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in fursada la siiyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyagu tabashooyinka qaba isla markaana madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyadu laga wada hadlo arrimihii lagu heshiiyey madaxweynayaashan ayaana ka hor yimid in xubnaha mucaaradka ee musharaxiinta ah ay ka qayb galaan shirkan iyadoona horay xubnaha midowga musharaxiintu ay u dalbadeen in shirkan laga qayb galiyo ayaga iyo saamilayda oo tabashada ka qaba arrimaha doorashooyinka waxa su'aal iska weydiinaya in xubnaha mucaaradka iyagu shirkan keenay ay ka qayb gali karaan iyadoo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay u gudbiyeen walina aan go'aan rasmi ah laga siinin beesha caalamka ayaa baaqooda jira ka soo saartay shirka maanta ka furmaya Muqdisho xubnaha beesha caalamka ayaa waxa ay ugu baaqeen hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya in ay sameeyaan tanaasul si wax ku ool ah uga soo baxaan shirka magaalada Muqdisho uga furmaya iyo in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha muranka doorashooyinka ka dhashay war-saxaafadeed ay si wada jira u soo saareen wakiilada beesha caalamka ee ku sugan Muqdisho ayay waxa ay ku booriyeen dhinacyada in si degdeg ah ay u qaban qaabiyaan doorashooyinka salka ku haya heshiiskii 17 September 2020 ay gaareen xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale bogaadiyay shirka arrimaha doorashooyinka ee la filayo in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho waxaana ay tilmaameen in arrintan ay tahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay in aan la lumin xubnaha beesha caalamka oo saxaafadoodkooda ay sidoo waxa ay ku soo hadal qaadeen howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee gudaha Soomaaliya ka howlgala waxaana xubnuhu ay sheegeen in loo baahan yahay in diiradda la saaro arrimaha ku aadan amniga doorashooyinka isla markaana la xaqiijiyo dowladaha Belgium, Canada, Denmark, Djibouti, Masar, Ethiopia iyo midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Jarmalka, urur goboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Holland, Norway, Poland, Qatar, Ruushka, Suudaan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, boqortooyada midowga Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ayaa si wada jir u soo saaray baaqan waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in la dardar geliyo arrimaha lagu xalinayo tabashooyinkii iyo shaqaaqooyinkii ka dhashay arrimaha doorashooyinka waxaana ay tilmaameen in loo baahan yahay in haatan laga shaqeeyo sidii hore loogu socodsiin lahaa waxa ay sidoo kale tilmaameen in ay taageersan yihiin dadaalada uu wado ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaana ku aadan arrimaha lagu wada hadalada ee lagu dardar gelinayo doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo xubnaha beesha caalamka ayaa sidoo kale waxa ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka in la dardar geliyo arrimaha doorashooyinka isla markaana ay sameeyaan wax walba oo hogaamin kara in dalka ay doorasho ka dhacdo dowladda Sacuudiga ayaa qabatay nin weerar ku ah imaamka masjidka xaramka ciidamada ammaanka ee masjidka xaramka ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin weerar ku ahaa imaamka masjidka xaramka oo aqrinayay khudbadii Jimcaha maalinkii Jimcaha ee shalay ahayd wakaalada wararka ee Sacuudiga ee loo soo gaabiyo SBA ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in nin eedeysana ah oo la qabtay oo isagu isku dayay in uu weerar ku qaado imaamka masjidka ay ka hortageen ka hor inta uusan gaarin minaaradda masjidka oo uu imaamku khudbada Jimcaha ka jeedinayay imaamka la weeraray oo lagu magacaabo Sheikh Bandar Baleelaha ayaa waxa uu kamid yahay imaamyada ku qoran masjidka xaramka ee barakeysan ee Makka al-Mukarrama waxaana la tilmaamay in sheekha la doonayay in weerarka lagu qarajiyo bishii la soo dhaafay Abriil ayaa waxa xaramka barakeysan lagu qabtay nin ku hubeysnaa maqaar kaas oo la tuhunsanaa in uu weerar qorsheynayay isla markaana uu doonayay in uu qarajiyo mid kamid ah imaamyada ku qoran masjidka barakeysan ee xaramka weerarada ayaa waxa la tilmaamay inay yihiin kuwa islaamka looga soo horjeedo isla markaana ay fulinayaan kooxo xagjiriin ah oo doonaya in markaas ay dilaan imaamyada ku qoran masjidka barakeysan ee xaramka gudaana daawada warkeed kala socoteen Warsa TV oo naga inta nabadgeliyo